إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرستي جنها كورابية فنانة وينادى سهرة أحمد جامع وهو جاريتي مقالة هرقيسة مالني شري أي واحد ما تتحسد تيران يله دري فنانين تكون دغن مقالة برع وحين تحسد درين قويسكي قرابدي يقرن كان يكبح زي مرحومته يقول له بريين ونحرستو مرحومته يا واحد يكون على مقالة برع سنة يكون سهل بقول لحية كتنكي وحين كوسو ببارت مقالة هرقيسة وحين فكت السوق عشان سنة يكون سهل بقول لحدين يستدي وحين كقيب قاطع رواية يسيدو كلها ساي كل قينيسو oo isugu jira jacayl iyo sidoo kale heesa wadani ah hadaba iyagoo fanaaniintu u diray taasi waxa uu dhignaa hadalkoodii sida tan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan waxaan taasi uga diraynaa Sahra Axmed Jaamac oo shalay ku geeriyootay magaalada Hargeysa fanaanadii weyneed ee qaaliga ahayd Sahra waxtarkeedii iyo waxqabadkeedii ma faalayn karno anagu mana qiimeyn karno wax weyn weeye Soomaalidu way og tahay Sahra fankeedu sidoo ahaa shalay bay Hargeysa ku dhimatay naxariistii janna Allah ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii ubadkii fanaaniintii bahda fanaaniinta Soomaaliland meel walba naxariistii janna Allah Sahra ka waraabiyo samir iyo iimaan Sahra Allah laga sii waan u soo ducaynaynaa ducaan wardigaan u soo rogaynaa hadan fanaaniinta nahay milgoy samir iyo iimaan ka qaado Sahra dhabtaaday kaga baxday naftu caruurtana aka oohinin de qof walba uu dhimanaya kulli daaqatalmood qof walba maalintiisa la qaadaya de naxariistii janna Sahra Allah ka waraabiyo ummadda Soomaaliyeedna samir iyo iimaan Allah ka siiyo iyadana godka Allah u nuur oo qabriga Allah u waasiciyo waxaan halkan taasi uga diraynaa marxuumadii inagu qaaliga ahayd Sahra Axmed Jaamac ilaahay naxariistii janna siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan uga taxsiideynaa fanaanadaas oo inagu qaali ahayd dadkeedina ilaahay samir iyo iimaan dhamaanteen ay naga siiyo waxaan halkan taxsiid weyn uga dirayaa maamaday Sahra Axmed Jaamac ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo iyadii ummadda Nabi Maxamed ba wixii dhintay godka Allah u nuuro hooyaday qaali waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii jannaha ka waraabiyo waxay ahayd Sahra Axmed qof qaaliya oo aan dadku u kala sukayn gurigeedan ku noolaan jiray anigu maamaday bay ahayd gurigeeda waxaan ku maalmaha qaar baa 20 qof ama 30 qof isugu iman jireen oo aan walba leh oo aan dadku u kala socnayn bay ahayd oo aan dadka ka dhashay iyo ka maxayday aanay garanaynin ummad aanay garanayn baxda guriga joogi jirto aanay Sahra bay sarki jirin waxa weeyaan qof qaaliya bay ahayd ilaahay sharafku u dhameeyay waxaan uga baryaynaa naxariistii janna ilaahay ha ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan waxaanu ka tacsiideynaa fanaanadii Sahra Axmed Jaamac oo shalay ku geeriyootay magaalada Hargeysa waxaanu leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo fanaanadaas ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay ehelkeedii iyo qaraabadeedina samir iyo iimaan ha ka siiyo iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhanba kayga Soomaaliyeed waxay ahayd qof laga yaqaano oo ku qaaliya fanaanad caana bay ahayd taariikhdeeda kullay intaan uu ka hayo waxay ahayd qof wanaagsan qof dad jecel qof dal jecel qof aan dadka dhibin ayay ahayd fanaanadaasi waxaanu aad uga baryaynaa ilaahay oo nagu ducaynaynaa inuu ilaahay u naxariisto dhanka kale barasaafka gobolka Togdheer Mudane Xamse Maxamed Cabdi iyo sidoo kale Maxamed Diiriye Xayd Daljir ayaa iyagana dhankooda taasi u diray waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan qaaluu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan jecelahay halkan inaan maanta uga diro taasi dhammaan mujtamaca reer Soomaaliland gaar ahaan qoyskii qaraabadii ehelkii iyo fanaaniinta jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay joogaan geeridii naxdinta lahayd ee ku timi fanaanadii qaranka Sahra Axmed Jaamac ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa ta'aala inuu ka waraabiyo jannadii firdawsa dambigeedii hore iyo dambigeedii dhaafo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto Sahra Axmed Jaamac oo ahayd halyeeyad ka baxday fanka Soomaaliland halyeeyad ka baxday inta Soomaaliya ku hadasho dhan ilaahay waxaan uga baryaynaa in wixii ilaahay dambi ay lahayd uu ku dhaafo in qowlka thaabitana alla ku haleersiyo qabrigana Allah u nuuro yaanu ilaahay uga baryaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu samir iyo iimaan inaga siiyo dhamaanteen
hadday tahay eeladeedii hadday tahay Somaliland oo dhan ay ka baxday hadday tahay fankii ay ka baxday iyo hadday tahay inta af Soomaali ku hadashaba Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Somali Cable Burco